بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، maanta oo khamiis ah, taariikhduna ay tahay 19 bisha March 2020, waxaa isugu yimid hoolka Slimol ee shirarka, qaybo ka mid ah aimada masaajida ee magaalada Nairobi oo ilaa 30 masjid ka kala socda. waxay galabta loo fadhiyay oo aad looga hadlay oo la rogrogay xaaladda waddanka ku soo korodhay cudurkan coronavirus iyo saameyntiisa, iyo masaajida iyo goobaha cibaadada saameynta uu ku yeelan karo. aimada iyo culimada fadhiga joogtay markay dhinacyo badan wax ka fiiriyeen, dhinacyo badan wax ka daraaseeyeen, xukunka sharciga ah iyo masaajid xidhitaankooda culayska ay ku leedahay diinta islaamka markay fiiriyeen, dhanka kalena ay fiiriyeen ahmiyadda ay leedahay caafimaadka iyo bini aadanka noloshiisa in la ilaaliyo, iyo talooyinka ay dhakhaatiirta iyo jihooyinka caafimaadku ay bixiyeen markay wax ku dhiseen, waxaa u soo baxday oo ay soo saareen go-aamada soo socda. go-aanka koowaad waxa weeye in masaajida aan la xidhin ilaa go-aan rasmi ah oo dowladdu ay mas-uul ka tahay oo iyadu qasabtood ilzaamisay in lagu xidho mooye inaan masaajida la xidhin. maxaa yeelay ilaa iyo hadda wax khatar weyn oo keeni karta in masaajida la xidho ilaa iyo hadda ma jirto. haddii uun xaaladda isbedelo kala yimaadaan markeeda weeye waa laga tashan doonaa, laakiin ilaa iyo hadda wax qasba ama duruuf keeni karta in masaajida la xidho ma jirto. sidaas daraaddeed masaajida inaan la xidhin oo aan cibaadada laga xidhin. qodobka labaad waxa weeye in masaajidii hadday furnaanayso lala yimaado dadaallo siyaado ah oo lagaga hortegayo. ilaahay baa caafimaadka keena. xanuunkan aadka u faafay, argagaxa badanna dhaliyey, in tillaabooyin lagaga hortegayo iyo dadaal siyaada lala yimaado. kuwaasay ka mid tahay in goobaha musqulaha masaajida iyo meelaha lagu weysaysto in la xidho, maadaama dhakhaatiirtu siday muujinayaan ay tahay meelaha ugu badan ee cudurku ka faafi karo, in la xidho masaajida musqulahooda iyo meelaha lagu weysaysto. dadkuna ay ka soo weysaystaan guryahooda ka soo weystaan. sidaasaana diin ahaan u fadli badan oo ruuxu markuu soo weysaysto masaajidka soo aado, markuu weyse qab ku imaanayo ajir siyaadaha baa u soconaya. qodobka labaadi waxa weeye in meelaha lagu tukanaya iyo gogasha aada loo nadiifiyo oo la buufiyo si joogto ah. salaadoodba gadaasheeda in la buufiyo oo la nadiifiyo salliyada lagu tukanayo. dadkana sidoo kale lagu wacyigeliyo, hadday soo qaadan karaan salliyo iyagu si gooniya u wataana in lagu wacyigeliyo, laakiin dadaal siyaada lagu bixiyo nadiifinta goobaha lagu tukanayo iyo buufintooda. qodobka saddexaadi waxa weeye shareecadeennu maadaama ay shareecada waaqica dadka caafimaadkooda iyo noloshooda iyo xaaladda marka taagan la falgasho ay tahay, dadka da-da ah iyo dadka xanuunada xasaasiyadda iyo neefsigu dhibayo ama neefta qaba ama sanbabada ka jiran
ama dadka da'da u jilicsan xanuunka noocana waxaa lagula talinayaa inaysan imaanin salaadaha jamaacada oo ay ku tukadaan guryahooda iyo meelaha ay degan yihiin. ruqsad noocaasna shareecada way heli karaan maadaama cabsida iyo baqdintu dhankooda u badan tahay. taana waa talo ay culimmadu soo jeedinayso dadka da'da iyo dadka xanuunada khaaska qaba oo u jilicsan. qodobka xigay waxa weeye in mar walba aimada masaajida iyo maamuladoodu inay mar walba ay la socdaan talooyinka iyo tawjiihaadka ka imaanaya jihooyinka rasmiga ah muxuu ahay ku shaqo leh xanuunka gaar ahaan jihooyinka caafimaadka ee rasmiga ah. mar walba talooyinka ka imaanaya in la qaato la ilaaliyo isla markaa haddana la iska ilaaliyo jihooyin kaloo waxaa jira aan rasmi ahayn oo faafiya social media inta badan ku faafiya macluumaad aan sax ahayn, inta badanna abuuraya argagax iyo halac fara badan mujtamaca ku abuuraya. in kuwaana la iska ilaaliyo jihooyinka rasmigaana mar walba laga tala qaato tawjiihaadkooda iyo tala bixintoodana mudnaan la siiyo. waxaa kaleeto ka mid a qodobada la qaatay in mar walba masaajida iyo maamuladooda iyo aimadoodu ay dhakhaatiirta ku casuumaan masaajida oo ay dhakhaatiirtu bulshada siiyaan tawjiihaad ku aadan xanuunkan iyo sida la isaga ilaalin karo iyo waxyaabaha keena iyo calaamadihiisa in iyadana sidoo kale dhakhaatiirta lagu marti qaado. waxaa ka mid a dadka calaamadaha xanuunkan lagu sheegay isku arka ama qufac ama hargab siyaada ama qandho ama calaamado noocaas oo kale ruuxii dareema isagana waxaan kula talinaynaa inuusan masaajida imaanin, isaga tukado goonidiisa u tukado. maxaa yeelay sida la sheegay xanuunkani waa qarsoonaan karaa. marka hore hargab waa u ekaan karaa si uusan markaa uusan u sababin inuu dad kaleeto uu u gudbo ama dhibaato siyaada ina uga dhalanin. calaamadahaasi hargab caadiyana way noqon karaan, xanuun caadiyana way noqon karaan, xanuunkiina way noqon karaan. taxadarku mar walba meesha waa ku jira. marka dadka calaamadaha xanuunka dareema inaynan imaanin masaajida iyo goobaha caamka ayadana insha allahu tacaala talooyinkay ka mid tahay. talooyinka waxaa ka mid a in masaajida xilliyada la joogayo iyo xilliyada la soo gelayo in la cidhiidhiyo oo la yareeyo. sababtuna ay tahay in la xakameeyo talooyinka iyo irshadaadka hay-adaha caafimaadkana la tixgeliyo oo xilliga masaajidka la soo gelayo iyo xilliga laga baxayo muxuu ahaay waxoogaa sidii hore wax laga bedelo. isla markaa haddana dadweynaha waxaan ka codsanaynaa tawjiihaadka a'imada iyo maamulada masaajida inay qaataan wixii ku saabsan xilliyada iyada insha allahu tacaala. gaar ahaan khudbada jumcada in aada loo gaabiyo. hadday aada u dheeraato 20 daqiiqo, haddii kale 10 daqiiqo, 15 daqiiqo in lagu soo gaabiyo insha allahu tacaala oo muddooyinkaasi aada loo xadido. waxaa kaleetoon ummadda muslimka ugu baaqaynaa xanuunadan ilaahay baa keenay, ilaahay baana qaadi karaya. asbaabta lagu qaadana waxaa ka mid a taxadarkaas faraha badan iyadoo la sameynayo haddana in ilaahay loo noqdo oo ilaahay la baryo oo ilaahay loo tadarruco oo la toobad keeno, dambi dhaaf la weydiisto oo muxuu ahay la ducaysto ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu xanuunadan intii uu ku dhacayna ka caafiyo, intii kaleetana ilaahay ka ilaaliyo. asbaabta iyadana ka mid tahay keliyata uun dadaalkeennan inaga aan samaynayno wax ka muhiimsan baa jiro ducada iyo ilaahay xaggiisa in loo cararaa. iyadana wax weeye talooyinka ayay ka mid tahay. waxaan mudan runtii inaan u mahad celino ilaahay baa mahad dhammaanteed iska leh tabaaraka wa tacaala, laakiin waxaa mudan inaan runtii tanwihino mowqifka xukuumadda oo ah inay runtii tixgelin khaasa siisay goobaha cibaadada oo runtii aan markiiba go-aankii ugu horreysay lagu darin in la xidho goobaha cibaadada. waxaana sii xoojinaynaa goobaha cibaadadu waa goobaha ugu dambeeya ee go-aan laga qaato waay. waxaanan leenahay go-aanka ku saabsan goobaha cibaadada in mar walba dadka ahlul muxuu ahaay ehelka u ah
taladooda aan laga tilaabsanin oo culimada muslimiinta khaasatan la tixgeliyo markii ay noqonayso dowladdu inay go-aan ka soo saarayso goobaha cibaadada. Arrintaana waa uga mahad celinaynaa. Waxa kaleeto oo runtii mudan iyadana inaan kelimad tawjiihiya dhahno. waxaa jira masaajid magaalada ku yaala wali masaajidii ugu waaweyn qaybo ka mid ah oo la xidhay oo maanta iyo shalay qayb ka mid ah xidhnaa. iyadana waxaan leenahay masaajidda waxaan codsanaynaa in dib loo furo wixii tadaabiir iyo muxuu ahay process ijraa'aad laysku yani dadaal la sameyn karo taxadar ha la sameeyo, laakiin masaajidda inaan la xidhin welina ma gaadhan xilli lagu dhiirado runtii masaajid ilaahay oo lagu cibaadaysanayo in la xidho. waxaan isleenahay weli lama gaadhin, ilaahayna xilli aan gaadhno iyo duruuf aan ku gaadhno ilaahay naga ilaaliyo. laakiin waxaan leenahay masaajidii dib ha loo furo. waxaa kaloo leenahay isku talaha laga ahaado hadda kadib wixii ku saabsan masaajidda. hal masjid hadduu go-aan qaato runtii ummaddii inteeda kale o dhan iyo ducfaruur ku sameynaya. aimadii masaajidda reer Mombasa ayaa maanta hadlayay oo iyaguna sidan hadda aan u hadlaynoo kale go-aan usoo saaray. reer North Eastern sidoo kale culimadii joogtay iyo aimadii ayaguna go-aan noocan oo kale bay soo saareen oo masaajidda inaan la xidhin laakiin wixii dadaala la sameeyo. marka waxaan leenahay masaajidii la xidhayna dib ha loo furo. hadda kadibna go-aan hal masjid iyo laba masjid aan ummadda loo qaadanine talo laysugu yimid oo loo midaysan yahay oo culimada loogu yeedhay oo dhinac walba laga fiiriyey go-aamada noocan oo kale ha lagu qaato baan leenahay. aad baad u mahadsantihiin, jazaakum allahu khayran. aimada iyo culimada kasoo qeyb gashay, bahda saxaafada iyo akhyaarta timid, dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. ilaahayna tabaaraka watacaala waxaan rajaynaynaa inuu xanuunkan iyo wixii la midaba ummadda ilaahay tabaaraka watacaala uu ka sarfiyo ka qabto. intuu ku dhacayna ilaahay inuu ka caafiyo. aafaadka kale samaawigaana ilaahay tabaaraka watacaala ina garamariyo. jazaakum allahu khayran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.